Assalaamu calaykum asxaabteyda sharafta leh. Ka faa'iidaysiga waqtiga waa arrin xasaasi ah. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gambaleelka aan ku xirano saacadda iyo sida dad kala duwan ay uga falceliyaan. Ma jiraa mid idinka mid ah oo gambaleelka saacadda ku xirto si uu u soo kaco subaxii? Waan hubaa waad suubisaan. Xoogaha waa arrin la yaab leh sida kala duwan oo ay dadka uga falceliyaan markuu gambaleelka yeero. Dadka gambaleelka saacadda ku xirto waxay u kala baxaan afar nooc. Qaybta koowaad, dadka qaar markuu gambaleelka yeero hurdaday isku dhejiyaan, waxay sii wataan hurdo aan inaba caadi ahayn. Dadka noocaan ah gambaleelkay ku xirtaan xitaa kuma kacaan. Xaqiiqdii, dhaqamada xunxun oo ah in la iska jiifo ayay caadaysteen. Noloshooda xitaa kama fikirayaan. Dadka noocaan ah waxaa la dhahaa hurdaweynayaasha. Qaybta labaad waa kuwa markuu gambaleelka yeero waxay dhahayaan daqiiqad bal aan iska sii jiifo, waa inaan isbeddelo suubiyaa, waan beddeli doonaa, laakiin maanta ma ahan, dabcan berrito. Waqtiga iisii dheeree aan sii seexdee, waxaan hubaa dad badan in ay saas suubiyaan. Dadka noocaan ah dhaqamada xunxun ayay leeyihiin oo ah berriyeynta, berri ayaan wax qabsan doonaa, saa dambe ayaan wax qabsan doonaa. Qaybta kaloo saddexaad waa kuwa markuu gambaleelka soo dhaco way kacaan, waxay bilaabaan in ay sii dul fadhiyaan sariirta, ku dul fakiraan, su'aalo isweydiiyaan. Aniga yaa nahay? Maxaa weeye ujeedka noloshayda? Maxaan alamka ugu xirtay ama gambaleelka? Kadibna gambaleelkay damiyaan, hurdaday dib ugu laabtaan. Dadka noocaan ah waxaa la dhahaa caajisoolayaasha. Noloshooda wahsi iyo caajis bay ku luminayaan. Horsocod ma lahan. Ugu dambeyntii, qaybta afaraad waa kuwa markay maqlaan gambaleelka xaqiiqdii way soo kacaan, isla markiiba shaqo maalmoodkoodii hore ka bilaabaan. Waxay bilaabayaan in ay noloshooda hormariyaan. Dadka noocaan ah waxaa lagu tilmaami karaa dadka howlkarka ah, dadka ka faa'iidaysta waqtigooda. Walaalayaal, su-aasheeda ayaa ah afartan nooc adigu midkee tahay? Markii loo fiiriyo soo kicitaanka subaxii, mudanayaal marwooyin, aan noqono kuwa soo kaca waqti fiican oona ka faa'iidaysta waqtigooda. Yaana noqonin kuwa caajisoolayaasha ah oo iska hurdo un. Si wanaagsan aan u fakirno, si wanaagsan aan u hadalno, wax wanaagsan aan suubinno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta taa ku cusubtiin janalkan, fadlan subscribe saar. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijka layaabka dunida. Dunidan aynu ku noolnahay waxaa jiro taariikho cajiib ah kuwaas oon wax ka baran karno. Maanta waxaan idiin wadaa 4 meelood oo cajiib ah kuwaas oo taariikhda galay. Waxaa ka mid ah nambarka koowaad, magaalo dhulka hoostiisa ku taalo. Magaaladan waxa ay ku taalaa degmada Derinkuyu, gobolka Nefsahir ee waddanka Turkiga. In badan oo inaga mid ah waxaa laga yaabaa in aan la yaabno haddii aan la kulanno magaalo dabiici ah oo dhulka hoostiisa ku taalo. Sanadku markuu ahaa 1963, nin Turkish ah ayaa waxa uu arkay dhagax ku daboolan god meel gurigiisa u dhow. Arrinta la yaabka leh ayaa ah markii dhagaxii ku daboolnaa godkaas uu ka qaaday, waxa uu arkay magaalo dhulka hoostiisa ku taalo, taasoo lagu qiyaasay 280 mitir in ay dhulka hoostiisa u qodan tahay. Magaaladan waxa ay ku taallaa waddanka Turkiga, gaar ahaan degmo lagu magacaabo Derinkuyu ee gobolka Nefsahir. Waa magaalada ugu weyn oo dhulka hoostiisa ku taalla waddanka Turkiga. Halkii mar waxay qaadi kartaa dad gaaraya 20,000 oo qof. Waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu weyn dunida oo dhulka hoostiisa ku yaalo. Waa magaalo dalxiiska loo aado. Dad kala duwan baa dunida daafaheeda ka imaado si ay u soo booqdaan magaaladan sanad walba. Nambarka labaad waa webi cajiib ah. Waa webi inta badan aanan arkin kuwii aan arki jirnay ka duwan. Webigan magaciisa waxaa la yiraahdaa Kano Crystallis. Sidoo kale waxaa loogu yeeraa webigii 5 kalar lahaa. Webigan waxa uu ku yaalaa waddanka Colombia, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Meta. Waxyaabaha la yaabka leh uu leeyahay webigan waxaa ka mid ah in biyihiisa ay dhowr nooc ama kalare kala duwan noqdaan sanad walba, laga bilaabo bisha Luulyo ilaa November. Laakiin sanadka intiisa kale biyaha waa caadi. Webigan wuu ka duwan yahay webiyaashii aan naqaanay sababtoo ah waxa uu leeyahay kalare cajiib ah sida kalarka jaalaha,
cagaarka, buluuga, madowga iyo weliba kalarka gaduudka ah. waxaan dhihi karnaa waa abuur ilaahay, alla ayaa ku cilmi leh. waxyaabaha cajiibka uu leeyahay waxaa ka mid ah in gudihiisa aan laga helaynin malayga iyo xayawaano kaloo nool. waa sababta keentay in dalxiis loo soo aado sanad walba. dad badan ayaa soo booqda webigan laga bilaabo bisha luulyo ilaa nofembar sanad walba, si ay ugu dabaashaan, sawirro taariikhi ahna ugu galaan. webigan waxaa lagu qiyaasaa dhirirkiisa in uu la egyahay 62.1 mayl. nambarka 3 waa dhismaha Taj Mahal. waa dhismo la yaab leh, habdhismeedkiisu uu wacan yahay. waxa uu ku yaalaa magaalada Agra ee gobolka Uttar Pradesh ee India. waxaa dhisay boqor la dhihi jiray Shah Jahan, kaasoo xukumi jiray waddanka India inta u dhaxaysay 1630 ilaa 1648 ee boqortooyadii Maquulka. dhismahan ayuu ugu talagalay mid ka mid ah 3diisa xaas oo la dhihi jiray Mumtaz Mahal, si uu ugu muujiyo jaceylka uu u qabo xaaskiisa Mumtaz Mahal. dhismaha Taj Mahal waxaa kaloo uu leeyahay beer gaaraysa ilaa 300 oo mitir. beerta ayaa lagu magacaabaa beertii Maquulka. waxaa dhex maro marino biyo ah, barkado iyo geedo aad u qurxoon. dhismahan qadiimiga ah ayaa waxaa usoo dalxiis taga sanad walba malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ka imaanaya. dhismaha Taj Mahal ayaa lagu qurxiyey farshaxanka Islaamka, taasoo loo aqoonsaday in uu yahay jawharadii Islaamka ee India iyo farshaxankii muslimiintii hore. dhismahan ayaa noqday mid ka mid ah 7 mucjiso ee caalamka. sanadku markuu ahaa 1983 ayaa lagu daray meelaha dhaxalka caalamiga ah ee UNESCO. insha Allah dhismaha Taj Mahal iyo qisada uu ku yimid waan idiin soo wadaa, barnaamij baan kasoo diyaarinayaa insha Allah. nambarka 4 waxaa la dhahaa The Colosseum. waa meel la dhahaa Colosseum. waxa uu ka mid yahay dhismayaasha qadiimiga ah oo taariikhda galay. dhismahan waxa uu ku yaalaa bartamaha caasimadda Talyaaniga ee Roma. waxaa dhisay boqor ka talin jiray waddanka Talyaaniga, magaciisu uu ahaa Vespasian. dhismahan waxa uu leeyahay 80 meelood oo laga soo galo. ciyaaro kala duwan ayaa lagu qabtaa. musiibooyin dabiici ah sida dhulgariir baaxadiis aad u sareyso ayaa ku habsaday dhismahan, taasoo sababtay in qaybo ka mid ah uu burburo. waa meelaha ugu badan dunida oo loo soo dalxiis tago sanad kasta. waxaa lagu qiyaasaa 7.4 milyan oo dad ah in sanad walba ay soo booqdaan. waxyaabaha cajiibka ah oo taariikhda galay ayaa ah dad kor u dhaafaya 500,000 oo qof in ay noloshooda ku waayeen, sidoo kale milyan xoolo ka badan in lagu dilay xilliyadii ciyaaraha lagu qaban jiray dhismahan. asxaabta maanta halkaas ku eegay barnaamijka la yaabka dunida. waa qaybtiisa koowaad. qaybo fara badan waan soo wadaa. waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad sii faafisaan, sii sheegareysaan. haddii aad ugu cusub tahay fadlan janaalka subscribe garee. barnaamijyo xiiso badan insha Allah ka nagala socda. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum. ma jiro qof jasiirad ah, yacni jasiirad waxaan ula jeedaa ma jiro qof iskaafin karo oo wax walba iskaga filan dunidan. bini'aadamka wuxuu u baahan yahay dad ula noolaado, dad uu la macaamilo, dad ay wax wada qabsadaan. asxaab ayaa noloshaada soo marayso, dad badan ayaa noloshaada kusoo biirayo. marka maanta barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay dadka kala duwan oo noloshanada kusoo biiraya, noocyadii u kala baxaan. waxaa soo maraya nolosheena 3 nooc oo dad ka mid ah. dadka nolosheena soo marayo waa sidii qaybaha kala duwan ee geedka. geedka waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo ah caleemaha, laamaha iyo xididada. dadka qaar waa sidii caleemaha geedka oo kale, markay dabeesha timaado lama arkayo, markuu xilliga isbedelo way isbedelayaan. waa saaxiibtinimo maalmo kooban ku eg. sidii caleemaha oo kale, dadka noocaana way qurux badan yihiin markaad xiriirka wada bilaabaysaan, laakiin ugu dambeyntii dib looma arkayo. dadka noocaana waxaad oran kartaa ama waxay ku barayaan in aad adeeg ka qaado xanuunka ay kugu reebeen, aad u bedesho ficil waxtar leh, waayo cashiro ayay ku bareen oo ah in aad la'aantooda wax qabsan karto. nooca labaad oo dadka ka mid ah waa sidii laamaha geedka oo kale, iska jir dadka noocaana, waayo dhagartooda ayaa aad u badan.
waxay iska dhigayaan in ay saaxiibkaada runta ay yihiin oo kale. way dhacdaa nolosha inaad aragto dad ku dhahayo anaa wax ku siinayo, anaa wax walba ku qabanayo, anaa kuu joogo, daqiiqada kadib waan kula joogaa. balse markaad isku daydo inaad wax ka ogaato ballamadaas, waxaad ogaanaysaa in aysan waxba ka jirin. tani waxayna tusaysaa fursadda ah in aan daacad u noqonno nafteenna iyo dadka nagu hareeraysan. waxaan u baahannahay inaan asxaab la noqonno dad nolosheenna wax ku soo kordhin karo, hadday noqoto maskixiyan, hadday noqoto dareen, muuqaal iyo wanaag intaba. dadka qaybta saddexaad oo noloshaada ku soo biirayo waa sidii xididada geedka oo kale. dadka noocaan ah noloshaada marnaba kama dheeraanayaan, weligaa garabkaaga weeyo marxalad kasta iyo waqtiyada isdhalanroga, sida maalmaha dhanaan iyo waqtiyada qaraar, intaba way ku garab istaagayaan. saaxiibka dhabta ah taariikh nololeedkaada iyo guud ahaan noloshaada ayuu ka warqaba. geedka inta ay noloshiisa jirto waxa uu leeyahay malaayiin caleemood, kumanaan laamood, laakiin salka waxa uu ku leeyahay xidido tira ahaan aad u yar, kuwaasoo u xaqiijinaya geedka inuu wax walba uu helo. markii aad hesho dad sidii xididada geedka oo kale ah, ku dhag oo ha sii deynin, laakiin kuwa kaloo ka soo haray iska ilow, waayo noloshaada ka mid ma ahan. haddii ay noloshaada qayb ka yihiin way joogi lahaayeen. dib u fiiri noloshaada, yaa ah caleenta, laanta ama xididka? adigu se maxaa tahay? caleenta miyaa tahay, laanta ama xididka? sidoo kale xasuusnow, ma bedeli kartid dadka kugu hareersan walaal, laakiin waxaad bedeli kartaa dadka aad rabto in aad la noolaato. walaal, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa, haddii muuqaalkan uu ku xiise geliyey, subscribe saar haddii aad ku cusub tahay janalkan, gambaleelka taabo si aad noola socoto mar walba oo wax walba soo dhigno. sidoo kale qaybta hoose comment ama fariin noogu reeb, waayo fikradaada waa noo muhiim. mahadsanideen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dad badan noloshooda waxa ay ku lumiyaan in ay la noolaadaan dhacdooyinkii lasoo dhaafay, in noloshooda ay barbar dhigaan dadka kale, yacni waxa ay ku jiraan nolol xabsi ah, taasoo u diidayso in ay horay u socdaan. haddii aad rabtid in aad ku noolaato nolol aayatiin leh, noloshaada marna ha u ogolaanin in ay kontaroolaan 5 waxyaalood. iska ilaali in 5 waxyaalood ay saameyn ku yeeshaan noloshaada. qodobka koowaad ama nambarka koowaad ayaa ah wixii lasoo dhaafay. ha u ogolaanin wixii ku soo maray nolosha in ay saameyn ku yeeshaan waqti xaadirkan ama mustaqbalka waxa aad higsanayso. wax walboo dhacay iska ilow xanuunka aad soo martay si aysan u burburinin mustaqbalkaada. ka bax nolosha mugdiga ah si aysan kaaga xirin iftiinka nolosha. wixii lasoo dhaafay way tageen, wax walboo kugu dhacay waxay noqotaba in aad noloshaas ku sii noolaato, wax faa'iidaha kuma keenayso. haddii uu qof qalad kaa galo, waxaad keliya oo guulaysan kartaa waa inaad iska cafiso, horeyna aad u socoto. haddii aad la nooshahay naceeb, way kaa guulaysteen. haddii aad rabto in aad guulaysato mustaqbalkaada, dhis waqti xaadirkan bilow. iska deji culayska ku saaran si aad xor u noqoto. nambar 2 ama qodobka labaad ayaa ah iska ilaali afkaaraha ama fikradaha dadka kale in aad noloshaada ku xirto ama ay ku tiirsanaato. qancinta dadka kale aad qancinayso, haddii fikradahooda aad qaadato, ogow mustaqbalkaada ayaa meeshaas ku lumay. inta aadan wax suubinin, isweydii, waxa aan suubinayo ma waxaan u suubinayaa rabitaan aan aniga rabo, mise waxaan u suubinayaa si aan u qanciyo qalbiyada dadka kale? adiga qiimo ayaad leedahay, ma aha noloshaada in aad ku xirto dadka kale. waxa ay kaa aamini doonaan. iftiimi noloshaada. kuwa noloshaada ka fakirayo waxay arki doonaan iftiinkaas kuu muuqda, wayna ku garab istaagi doonaan. qodobka 3 ama nambar 3 ayaa ah ka saar noloshaada fikradaha qaldan ood nafsadaada ka aaminsan tahay. tani waxaa sabab u noqon kara noloshii aad yaraantaadii ku soo kortay iyo dhegaysiga asxaabtaada, kuwaasoo laga yaabo in ay nolosha ku fashilmeen. iska saar fikradaha xunxun oo noloshaada hoos u dhigaya. ma jiro wax aadan qaban karin, wax walba waa macquul, waa haddii adiga aad kalsooni isku qabto. xikmad ayaa odhanayso, haddii uusan jirin cadow gudahanaga ah, cadow bannaanka ka imaanayo waxba kuma yeeli karo. noloshaada way isbedelaysaa markii aad go'aansato in aad adiga isbedel suubin karto.
in aad indha caafimaad leh ku aragto nimcooyinka uu Allah ku siiyey oo lixaadka uu kow ka yahay. walaal ha isliidin. qodobka afaraad ama nambarka afaraad ayaa ah xiriirka. waa arrin in laga hadlo u baahan. haddii markasto aad rabto qof kale in aad farxad geliso, waxaad halis ugu jirtaa in qalbigaada dhaawac soo gaaro haddii qofkaas uu kaa tago, ama aad farxad la'aan dareento haddii xiriirkaas uusan si fiican u sii soconin. aniga ma soo jeedinayo in xiriirka la iska dhaafo. waa wax fiican jaceylka waa nolol, waa farxad, laakiin waxaan ka hadlayaa kuwa aanan noolaan karin haddaysan xiriir suubinin. kuwa raba in ay qof kasta xiriir la suubiyaan ayagoo iska ilaalinaya kelinimada. waxaan idiin sheegaya ayaa ah in maskaxdiina aad korisaan ilaa aad ka gaarto heer aadan u baahnayn kuwa kale in ay ku farxad geliyaan. ku faraxsanow noloshaada haddii xitaa aad xiriir ku jirto, farxaddaada qof kale ha ka sugo. qodobka shanaad ama nambarka shanaad ayaa ah lacagta. tani micnaheedu ma ahan in aadan lacag yeelanin, micnaheedu ma ahan in lacagta ay wax xun tahay. waan wada ogsoonnahay markii aad lacag haysato waxyaabaha aad qabsan karto iyo inta qof oo lacag aad ku caawin karto. laakiin waxaan ka wadaa, ha u ogolaanin in go'aamadaada aad ku xirto lacag. haddii shay aad ku dooranayso lacag intee leeg ayaan ka heli karaa, go'aan qaldan ayaad qaadat walaal. waxaad ogaanaysaa markii aad qalbigaada nadiifiso, sidoo kale aad ku noolaato nolol ku dhisan dadka kale, in aad caawiso, in aad noloshaada wax ka beddesho. isku day in aad ku noolaato nolosha aad adigu rabto. ha u ogolaanin maanta waxay ka bilowdo noloshaada in ay koontaroolaan waxyaabahan aan soo sheegnay oo dhan. fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa, haddii muuqaalkan uu ku xiiso geliya inaad sii faafiso, asxaabtaada aad sii gaarsiiso. haddii channelka aad ku cusubtaana subscribe saar, like, comment ka soo bixi. fikradaada waa noo muhiim. assalaamu calaykum asxaabteyda sharafta leh. ka faa'iidaysiga waqtiga waa arrin xasaasi ah. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo gambaleelka aan ku xiranno saacadda iyo sida dad kala duwan ay uga falceliyaan. ma jiraa mid idinka mid ah oo gambaleelka saacadda ku xirto si uu usoo kaco subaxii? waan hubaa waad suubisaan. xoogaha waa arrin la yaab leh sida kala duwan oo ay dadka uga falceliyaan markuu gambaleelka yeero. dadka gambaleelka saacadda ku xirto waxay u kala baxaan 4 nooc. qaybta koowaad, dadka qaar markuu gambaleelka yeero hurdaday isku dhejiyaan, waxay sii wataan hurdo aan inaba caadi ahayn. dadka noocaan ah gambaleelkay ku xirtaan xitaa kuma kacaan. xaqiiqdii dhaqamada xunxun oo ah in la iska jiifo ayay caadaysteen, noloshooda xitaa kama fikirayaan. dadka noocaan ah waxaa la dhahaa hurdaweynayaasha. qaybta labaad waa kuwa markuu gambaleelka yeero waxay dhahayaan, daqiiqad bal aan iska sii jiifo, waa inaan isbeddelo suubiyaa, waan beddeli doonaa, laakiin maanta ma ahan, dabcan berrito. waqtiga iisii dheeree aan sii seexdee. waxaan hubaa dad badan in ay saas suubiyaan. dadka noocaan ah dhaqamada xunxun ayay leeyihiin oo ah berriyeynta. berri ayaan wax qabsan doonaa, saa dambe ayaan wax qabsan doonaa. qaybta kaloo saddexaad waa kuwa markuu gambaleelka soo dhaco way kacaan, waxay bilaabaan in ay sii dul fadhiyaan sariirta, ku dul fakiraan, su'aalo isweydiiyaan. aniga yaa nahay? maxaa weeye ujeedka noloshayda? maxaan alamka ugu xirtay ama gambaleelka? kadibna gambaleelka ay damiyaan, hurdaday dib ugu laabtaan. dadka noocaan ah waxaa la dhahaa caajisoolayaasha. noloshooda wahsi iyo caajis bay ku luminayaan, horsocod ma lahan. ugu dambeyntii, qaybta afaraad waa kuwa markay maqlaan gambaleelka xaqiiqdii way soo kacaan, isla markiiba shaqo maalmoodkoodii horey ka bilaabaan. waxay bilaabayaan in ay noloshooda hormariyaan. dadka noocaan ah waxaa lagu tilmaami karaa dadka howlkarka ah, dadka ka faa'iidaysta waqtigooda. walaalayaal, su-aasheeda ayaa ah 4 nooc adigu midkee tahay? markii loo fiiriyo soo kicitaanka subaxii, mudanayaal marwooyin, aan noqonno kuwa soo kaca waqti fiican oona ka faa'iidaysta waqtigooda. yaana noqonin kuwa caajisoolayaasha ah oo iska hurdo un. si wanaagsan aan u fakirno, si wanaagsan aan u hadalno, wax wanaagsan aan suubinno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta taa ku cusubtiin janalkan fadlan subscribe saar. assalaamu calaykum. kusoo dhawaada barnaamijka layaabka dunida. dunidan aynu ku noolnahay waxaa jiro taariikho cajiib ah kuwaas oon wax ka baran karno. maanta waxaan idiin wadaa 4 meelood oo cajiib ah kuwaas oo taariikhda galay. waxaa ka mid ah
nambarka koowaad, magaalo dhulka hoostiisa ku taalo. Magaaladan waxa ay ku taalaa degmada Derinkuyu, gobolka Nevşehir ee waddanka Turkiga. In badan oo inaga mid ah waxaa laga yaabaa in aan la yaabno haddii aan la kulanno magaalo dabiici ah oo dhulka hoostiisa ku taalo. Sanadku markuu ahaa 1963, nin Turkish ah ayaa waxa uu arkay dhagax ku daboolan god meel gurigiisa u dhow. Arrinta la yaabka leh ayaa ah markii dhagaxii ku daboolnaa godkaas uu ka qaaday, waxa uu arkay magaalo dhulka hoostiisa ku taalo, taasoo lagu qiyaasay 280 mitir in ay dhulka hoostiisa u qodan tahay. Magaaladan waxa ay ku taallaa waddanka Turkiga, gaar ahaan degmo lagu magacaabo Derinkuyu ee gobolka Nevşehir. Waa magaalada ugu weyn oo dhulka hoostiisa ku taalla waddanka Turkiga. Halkii mar waxay qaadi kartaa dad gaaraya 20,000 oo qof. Waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu weyn dunida oo dhulka hoostiisa ku yaalo. Waa magaalo dalxiiska loo aado. Dad kala duwan baa dunida daafaheeda ka imaado si ay usoo booqdaan magaaladan sanad walba. Nambarka labaad, waa webi cajiib ah. Waa webi inta badan aanan arkin kuwii aan arki jirnay ka duwan. Webigan magaciisa waxaa la yiraahdaa Kano Crystallis. Sidoo kale waxaa loogu yeeraa webigii shanta kalar lahaa. Webigan waxa uu ku yaalaa waddanka Colombia, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Meta. Waxyaabaha la yaabka leh uu leeyahay webigan waxaa ka mid ah in biyihiisa ay dhowr nooc ama kalare kala duwan noqdaan sanad walba, laga bilaabo bisha Luulyo ilaa Nofeembar. Laakiin sanadka intiisa kale biyaha waa caadi. Webigan wuu ka duwan yahay webiyaashii aan naqaanay sababtoo ah waxa uu leeyahay kalare cajiib ah sida kalarka jaalaha, cagaarka, buluugga, madowga iyo weliba kalarka gaduudka ah. Waxaan dhihi karnaa waa abuur Ilaahay. Alla ayaa ku cilmi leh. Waxyaabaha cajiibka uu leeyahay waxaa ka mid ah in gudihiisa aan laga helaynin malayga iyo xayawaano kaloo nool. Waa sababta keentay in dalxiis loo soo aado sanad walba. Dad badan ayaa soo booqda webigan laga bilaabo bisha Luulyo ilaa Nofeembar sanad walba, si ay ugu dabaashaan, sawirro taariikhi ahna ugu galaan. Webigan waxaa lagu qiyaasaa dhirirkiisa in uu la egyahay 62.1 mayl. Nambarka saddexaad, waa dhismaha Taj Mahal. Waa dhismo la yaab leh. Habdhismeedkiisu uu wacan yahay. Waxa uu ku yaalaa magaalada Agra ee gobolka Uttar Pradesh ee India. Waxaa dhisay boqor la dhihi jiray Shah Jahan, kaasoo xukumi jiray waddanka India inta u dhaxaysay 1630 ilaa 1648 ee boqortooyadii Maquulka. Dhismahan ayuu ugu talagalay mid ka mid ah saddexdiisa xaas oo la dhihi jiray Mumtaz Mahal, si uu ugu muujiyo jaceylka uu u qabo xaaskiisa Mumtaz Mahal. Dhismaha Taj Mahal waxaa kaloo uu leeyahay beer gaaraysa ilaa 300 oo mitir. Beerta ayaa lagu magacaabaa beertii Maquulka. Waxaa dhex maro marino biyo ah, barkado iyo geedo aad u qurxoon. Dhismahan qadiimiga ah ayaa waxaa usoo dalxiis taga sanad walba malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ka imaanaya. Dhismaha Taj Mahal ayaa lagu qurxiyey farshaxanka Islaamka, taasoo loo aqoonsaday in uu yahay jawharadii Islaamka ee India iyo farshaxankii muslimiintii hore. Dhismahan ayaa noqday mid ka mid ah 7 mucjiso ee caalamka. Sanadku markuu ahaa 1983 ayaa lagu daray meelaha dhaxalka caalamiga ah ee UNESCO. Insha Allah, dhismaha Taj Mahal iyo qisada uu ku yimid waan idiin soo wadaa. Barnaamij baan kasoo diyaarinayaa insha Allah. Nambarka afaraad waxaa la dhahaa The Colosseum. Waa meel la dhahaa Colosseum. Waxa uu ka mid yahay dhismayaasha qadiimiga ah oo taariikhda galay. Dhismahan waxa uu ku yaalaa bartamaha caasimadda Talyaaniga ee Roma. Waxaa dhisay boqor ka talin jiray waddanka Talyaaniga, magaciisu uu ahaa Vespasian. Dhismahan waxa uu leeyahay 80 meelood oo laga soo galo. Ciyaaro kala duwan ayaa lagu qabtaa. Musiibooyin dabiici ah sida dhul gariir baaxadiis aad u sareyso ayaa ku habsaday dhismahan, taasoo sababtay in qaybo ka mid ah uu burburo. Waa meelaha ugu badan dunida oo loo soo dalxiis tago sanad kasta. Waxaa lagu qiyaasaa 7.4 milyan oo dad ah in sanad walba ay soo booqdaan.
waxyaabaha cajiibka ah oo taariikhda galay ayaa ah dad kor u dhaafaya 500,000 oo qof in ay noloshooda ku waayeen, sidoo kale milyan xoolo ka badan in lagu dilay xilliyadii ciyaaraha lagu qaban jiray dhismaha. asxaabta maanta halkaas ku eegay barnaamijka la yaabka dunida, waa qaybtiisa koowaad. qaybo fara badan waan soo wadaa. waxaan ka codsanayaa barnaamijkan inaad sii faafisaan, sii sheegareysaan. haddii aad ugu cusub tahay fadlan janaalka subscribe garee. barnaamijyo xiiso badan insha allah halkaa nagala socda. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum. ma jiro qof jasiirad ah, yacni jasiirad waxaan ula jeedaa ma jiro qof iskaafin karo oo wax walba iskaga filan dunidan. bini'aadamka wuxuu u baahan yahay dad ula noolaado, dad uu la macaamilo, dad ay wax wada qabsadaan. asxaab ayaa noloshaada soo marayso, dad badan ayaa noloshaada kusoo biirayo. marka maanta barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay dadka kala duwan oo noloshanada kusoo biiraya, noocyadii u kala baxaan. waxaa soo maraya nolosheenna 3 nooc oo dad ka mid ah. dadka nolosheena soo marayo waa sidii qaybaha kala duwan ee geedka waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo ah caleemaha, laamaha iyo xididada. dadka qaar waa sidii caleemaha geedka oo kale, markay dabeesha timaado lama arkayo, markuu xilliga isbedelo way isbedelayaan. waa saaxiibtinimo maalmo kooban ku eg. sidii caleemaha oo kale, dadka noocaana way qurux badan yihiin markaad xiriirka wada bilaabaysaan, laakiin ugu dambeyntii dib looma arkayo. dadka noocaana waxaad oran kartaa ama waxay ku barayaan in aad adeeg ka qaado xanuunka ay kugu reebeen, aad u beddesho ficil waxtar leh, waayo cashiro ayay ku bareen oo ah in aad la'aantooda wax qabsan karto. nooca labaad oo dadka ka mid ah waa sidii laamaha geedka oo kale, iska jir. dadka noocaana waayo dhagartooda ayaa aad u badan, waxay iska dhigayaan in ay saaxiibkaada runta ay yihiin oo kale. way dhacdaa nolosha inaad aragto dad ku dhahayo anaa wax ku siinayo, anaa wax walba ku qabanayo, anaa kuu joogo, daqiiqada kadib waan kula joogaa. balse markaad isku daydo inaad wax ka ogaato ballamadaas, waxaad ogaanaysaa in aysan waxba ka jirin. tani waxayna tusaysaa fursadda ah in aan daacad u noqonno nafteenna iyo dadka nagu hareeraysan. waxaan u baahannahay inaan asxaab la noqonno dad nolosheena wax ku soo kordhin karo, hadday noqoto maskaxiyan, hadday noqoto dareen, muuqaal iyo wanaag intaba. dadka qaybta 3aad oo noloshaada kusoo biirayo waa sidii xididada geedka oo kale. dadka noocaan ah noloshaada marnaba kama dheeraanayaan, weligaa garabkaaga weeyo. marxalad kasta iyo waqtiyada isdhalan roga, sida maalmaha dhanaan iyo waqtiyada qaraar, intaba way ku garab istaagayaan. saaxiibka dhabta ah taariikh nololeedkaada iyo guud ahaan noloshaada ayuu ka warqaba. geedka inta ay noloshiisa jirto waxa uu leeyahay malaayiin caleemood, kumanaan laamood, laakiin salka waxa uu ku leeyahay xidido tiro ahaan aad u yar, kuwaasoo u xaqiijinaya geedka inuu wax walba uu helo. markii aad hesho dad sidii xididada geedka oo kale ah, ku dhag oo ha sii deynin, laakiin kuwa kaloo ka soo haray iska ilow, waayo noloshaada ka mid ma ahan. haddii ay noloshaada qayb ka yihiin way joogi lahaayeen. dib u fiiri noloshaada, yaa ah caleenta, laanta ama xididka? adigu se maxaa tahay? caleenta miyaa tahay, laanta ama xididka? sidoo kale xasuusnow, ma bedeli kartid dadka kugu hareersan walaal, laakiin waxaad bedeli kartaa dadka aad rabto in aad la noolaato. walaal, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa, haddii muuqaalkan uu ku xiise geliyey, subscribe saar haddii aad ku cusub tahay janaalkan, gambaleelka taabo si aad noola socoto mar walba oo wax walba soo dhigno. sidoo kale qaybta hoose comment ama fariin noogu reeb, waayo fikradaada waa noo muhiim. mahadsanideen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dad badan noloshooda waxa ay ku lumiyaan in ay la noolaadaan dhacdooyinkii lasoo dhaafay, in noloshooda ay barbar dhigaan dadka kale, yacni waxa ay ku jiraan nolol xabsi ah, taasoo u diidayso in ay horay u socdaan. haddii aad rabtid in aad ku noolaato nolol aayatiin leh, noloshaada marna ha u ogolaanin in ay kontaroolaan 5 waxyaalood. iska ilaali in 5 waxyaalood ay saameyn ku yeeshaan noloshaada. qodobka koowaad ama nambarka koowaad ayaa ah wixii lasoo dhaafay. ha u ogolaanin wixii ku soo maray nolosha in ay saameyn ku yeeshaan waqti xaadirkan ama mustaqbalka waxa aad higsanayso.
wax walboo dhacay iska ilow xanuunka aad soo martay si aysan u burburmin mustaqbalkaada. ka bax nolosha mugdiga ah si aysan kaaga xirin iftiinka nolosha. wixii la soo dhaafay way tageen, wax walboo kugu dhacay waxay noqotaba in aad noloshaas ku sii noolaato wax faa'iidaha kuma keenayso. haddii uu qof qalad kaa galo, waxaad keliya oo guulaysan kartaa waa inaad iska cafiso, horeyna aad u socoto. haddii aad la nooshahay naceeb, way kaa guulaysteen. haddii aad rabto in aad guulaysato mustaqbalkaada dhis, waqti xaadirkan bilow. iska deji culayska ku saaran si aad xor u noqoto. number 2 ama qodobka labaad ayaa ah iska ilaali afkaaraha ama fikradaha dadka kale in aad noloshaada ku xirto ama ay ku tiirsanaato. qancinta dadka kale aad qancinayso, haddii fikradahooda aad qaadato, ogow mustaqbalkaada ayaa meeshaas ku lumbaay. inta aadan wax suubinin isweydii, waxa aan suubinayo ma waxaan u suubinayaa rabitaan aan aniga rabo, mise waxaan u suubinayaa si aan u qanciyo qalbiyada dadka kale. adiga qiimo ayaad leedahay, ma aha noloshaada in aad ku xirto dadka kale waxa ay kaa aamini doonaan. iftiimi noloshaada, kuwa noloshaada ka fakirayo waxay arki doonaan iftiinkaas kuu muuqda, wayna ku garab istaagi doonaan. qodobka 3 ama number 3 ayaa ah ka saar noloshaada fikradaha qaldan ood nafsadaada ka aaminsan tahay. tani waxaa sabab u noqon kara noloshii aad yaraantaadii ku soo kortay iyo dhegaysiga asxaabtaada kuwaasoo laga yaabo in ay nolosha ku fashilmeen. iska saar fikradaha xunxun oo noloshaada hoos u dhigaya. ma jiro wax aadan qaban karin, wax walba waa macquul, waa haddii adiga aad kalsooni isku qabto. xikmad ayaa odhanayso, haddii uusan jirin cadow gudahanaga ah, cadow bannaanka ka imaanayo waxba kuma yeeli karo. noloshaada way isbedelaysaa markii aad go'aansato in aad adiga isbedel suubin karto, in aad indha caafimaad leh ku aragto nimcooyinka uu Allah ku siiyey oo lixaadka uu kow ka yahay. walaal ha isliidin. qodobka 4 ama numberka 4 ayaa ah xiriirka. waa arrin in laga hadlo u baahan. haddii mar kasto aad rabto qof kale in aad farxad geliso, waxaad halis ugu jirtaa in qalbigaada dhaawac soo gaaro haddii qofkaas uu kaa tago ama aad farxad la'aan dareento haddii xiriirkaas uusan si fiican u sii soconin. aniga ma soo jeedinayo in xiriirka la iska dhaafo. waa wax fiican jaceylka waa nolol, waa farxad, laakiin waxaan ka hadlayaa kuwa aanan noolaan karin haddaysan xiriir suubinin. kuwa raba in ay qof kasta xiriir la suubiyaan ayagoo iska ilaalinaya kelinimada. waxaan idin sheegaya ayaa ah in maskaxdiina aad korisaan ilaa aad ka gaarto heer aadan u baahnayn kuwa kale in ay ku farxad geliyaan. ku faraxsanow noloshaada, haddii xitaa aad xiriir ku jirto, farxadaada qof kale ha ka sugo. qodobka 5 ama numberka 5 ayaa ah lacagta. tani micnaheedu ma ahan in aadan lacag yeelanin, micnaheedu ma ahan in lacagta ay wax xun tahay. waan wada ogsoonnahay markii aad lacag haysato waxyaabaha aad qabsan karto iyo inta qof oo lacag aad ku caawin karto. laakiin waxaan ka wadaa, ha u ogolaanin in go'aamadaada aad ku xirto lacag. haddii shay aad ku dooranayso lacag intee leeg ayaan ka heli karaa, go'aan qaldan ayaad qaadato walaal. waxaad ogaanaysaa markii aad qalbigaada nadiifiso, sidoo kale aad ku noolaato nolol ku dhisan dadka kale, in aad caawiso, in aad noloshaada wax ka bedesho. isku day in aad ku noolaato nolosha aad adigu rabto. ha u ogolaanin maanta waxay ka bilowdo noloshaada in ay koontaroolaan waxyaabahan aan soo sheegnay oo dhan. fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa haddii muuqaalkan uu ku xiiso geliya inaad sii faafiso, asxaabtaada aad sii gaarsiiso. haddii channelka aad ku cusub tahayna subscribe saar, like, comment ka soo bixi. fikradaada waa noo muhiim. assalaamu calaykum. kusoo dhawaada barnaamijka layaabka dunida. dunidan aynu ku noolnahay waxaa jiro taariikho cajiib ah kuwaas oon wax ka baran karno. maanta waxaan idiin wadaa 4 meelood oo cajiib ah kuwaas oo taariikhda galay. waxaa ka mid ah numberka 1, magaalo dhulka hoostiisa ku taalo. magaaladan waxa ay ku taalaa degmada Derinkuyu, gobolka Nevşehir ee waddanka Turkiga. in badan oo inaga mid ah waxaa laga yaabaa in aan la yaabno haddii aan la kulanno magaalo dabiici ah oo dhulka hoostiisa ku taalo. sanadku markuu ahaa 1963 nin Turkish ah ayaa waxa uu arkay dhagax ku daboolan god meel gurigiisa u dhow. arrinta la yaabka leh ayaa ah markii dhagaxii ku daboolnaa godkaas uu ka qaaday, waxa uu arkay magaalo dhulka hoostiisa ku taalo.
taasoo lagu qiyaasay 280 mitir in ay dhulka hoostiisa u qodan tahay. magaaladan waxa ay ku taallaa waddanka Turkiga, gaar ahaan degmo lagu magacaabo Derinkuyu ee gobolka Nefsehir. waa magaalada ugu weyn oo dhulka hoostiisa ku taalla waddanka Turkiga. halkii mar waxay qaadi kartaa dad gaaraya 20,000 oo qof. waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu weyn dunida oo dhulka hoostiisa ku yaalo. waa magaalo dalxiiska loo aado. dad kala duwan baa dunida daafaheeda ka imaado si ay usoo booqdaan magaaladan sanad walba. nambarka 2 waa webi cajiib ah. waa webi inta badan aanan arkin kuwii aan arki jirnay ka duwan. webigan magaciisa waxaa la yiraahdaa Kano Crystallis. sidoo kale waxaa loogu yeeraa webigii 5 kalar lahaa. webigan waxa uu ku yaalaa waddanka Colombia, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Meta. waxyaabaha la yaabka leh uu leeyahay webigan waxaa ka mid ah in biyihiisa ay dhowr nooc ama kalare kala duwan noqdaan sanad walba, laga bilaabo bisha Luulyo ilaa November. laakiin sanadka intiisa kale biyaha waa caadi. webigan wuu ka duwan yahay webiyaashii aan naqaanay sababtoo ah waxa uu leeyahay kalare cajiib ah sida kalarka jaalaha, cagaarka, buluugga, madowga iyo weliba kalarka gaduudka ah. waxaan dhihi karnaa waa abuur Ilaahay. alla ayaa ku cilmi leh. waxyaabaha cajiibka uu leeyahay waxaa ka mid ah in gudihiisa aan laga helaynin malayga iyo xayawaano kaloo nool. waa sababta keentay in dalxiis loo soo aado sanad walba. dad badan ayaa soo booqda webigan laga bilaabo bisha Luulyo ilaa November sanad walba, si ay ugu dabaashaan sawirro taariikhi ahna ugu galaan. webigan waxaa lagu qiyaasaa dhirirkiisa in uu la egyahay 62.1 mayl. nambarka 3 waa dhismaha Taj Mahal. waa dhismo la yaab leh. habdhismeedkiisu uu wacan yahay. waxa uu ku yaalaa magaalada Agra ee gobolka Uttar Pradesh ee India. waxaa dhisay boqor la dhihi jiray Shah Jahan, kaasoo xukumi jiray waddanka India inta u dhaxaysay 1630 ilaa 1648 ee boqortooyadii Maquulka. dhismahan ayuu ugu talagalay mid ka mid ah 3diisa xaas oo la dhihi jiray Mumtaz Mahal, si uu ugu muujiyo jaceylka uu u qabo xaaskiisa Mumtaz Mahal. dhismaha Taj Mahal waxaa kaloo uu leeyahay beer gaaraysa ilaa 300 oo mitir. beerta ayaa lagu magacaabaa beertii Maquulka. waxaa dhex maro marino biyo ah, barkado iyo geedo aad u qurxoon. dhismahan qadiimiga ah ayaa waxaa usoo dalxiis taga sanad walba malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ka imaanaya. dhismaha Taj Mahal ayaa lagu qurxiyey farshaxanka Islaamka, taasoo loo aqoonsaday in uu yahay jawharadii Islaamka ee India iyo farshaxankii muslimiintii hore. dhismahan ayaa noqday mid ka mid ah 7 mucjiso ee caalamka. sanadku markuu ahaa 1983 ayaa lagu daray meelaha dhaxalka caalamiga ah ee UNESCO. insha Allah dhismaha Taj Mahal iyo qisada uu ku yimid waan idiin soo wadaa. barnaamij baan kasoo diyaarinayaa insha Allah. nambarka 4 waxaa la dhahaa The Colosseum. waa meel la dhahaa Colosseum. waxa uu ka mid yahay dhismayaasha qadiimiga ah oo taariikhda galay. dhismahan waxa uu ku yaalaa bartamaha caasimadda Talyaaniga ee Roma. waxaa dhisay boqor ka talin jiray waddanka Talyaaniga, magaciisu uu ahaa Vespasian. dhismahan waxa uu leeyahay 80 meelood oo laga soo galo. ciyaaro kala duwan ayaa lagu qabtaa. musiibooyin dabiici ah sida dhulgariir baaxadiisu aad u sareyso ayaa ku habsaday dhismahan, taasoo sababtay in qaybo ka mid ah uu burburo. waa meelaha ugu badan dunida oo loo soo dalxiis tago sanad kasta. waxaa lagu qiyaasaa 7.4 milyan oo dad ah in sanad walba ay soo booqdaan. waxyaabaha cajiibka ah oo taariikhda galay ayaa ah dad kor u dhaafaya 500,000 oo qof in ay noloshooda ku waayeen, sidoo kale milyan xoolo ka badan in lagu dilay xilliyadii ciyaaraha lagu qaban jiray dhismahan. asxaabta maanta halkaas ku eegay barnaamijka la yaabka dunida. waa qaybtiisa koowaad. qaybo fara badan waan soo wadaa. waxaan ka codsanayaa barnaamijka inaad sii faafisaan, sii sheegareysaan. haddii aan ugu cusub tahay fadlan janaalka subscribe garee. barnaamijyo xiiso badan insha Allah halkaa nagala socda. waad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
dad badan noloshooda waxa ay ku lumiyaan in ay la noolaadaan dhacdooyinkii la soo dhaafay, in noloshooda ay barbar dhigaan dadka kale, yacni waxa ay ku jiraan nolol xabsi ah taasoo u diidayso in ay horay u socdaan. Haddii aad rabtid in aad ku noolaato nolol aayatiin leh, noloshaada marna ha u ogolaanin in ay kontaroolaan shantan waxyaalood. Iska ilaali in shantan waxyaalood ay saameyn ku yeeshaan noloshaada. qodobka koowaad ama nambarka koowaad ayaa ah wixii la soo dhaafay. Ha u ogolaanin wixii ku soo maray nolosha in ay saameyn ku yeeshaan waqti xaadirkan ama mustaqbalka waxa aad higsanayso. wax walboo dhacay iska ilow xanuunka aad soo martay si aysan u burburinin mustaqbalkaada. ka bax nolosha mugdiga ah si aysan kaaga xirin iftiinka nolosha. wixii la soo dhaafay way tageen, wax walboo kugu dhacay waxay noqotaba in aad noloshaas ku sii noolaato wax faa'iidaha kuma keenayso. haddii uu qof qalad kaa galo, waxaad keliya oo guulaysan kartaa waa inaad iska cafiso, horeyna aad u socoto. haddii aad la nooshahay naceeb, way kaa guulaysteen. haddii aad rabto in aad guulaysato mustaqbalkaada dhis, waqti xaadirkan bilow. iska deji culayska ku saaran si aad xor u noqoto. nambar 2 ama qodobka labaad ayaa ah iska ilaali afkaaraha ama fikradaha dadka kale in aad noloshaada ku xirto ama ay ku tiirsanaato. qancinta dadka kale aad qancinayso, haddii fikradahooda aad qaadato, ogow mustaqbalkaada ayaa meeshaas ku lumbaay. inta aadan wax suubinin isweydii, waxa aan suubinayo ma waxaan u suubinayaa rabitaan aan aniga rabo, mise waxaan u suubinayaa si aan u qanciyo qalbiyada dadka kale. adiga qiimo ayaad leedahay, ma aha noloshaada in aad ku xirto dadka kale waxa ay kaa aamini doonaan. iftiimi noloshaada. kuwa noloshaada ka fakirayo waxay arki doonaan iftiinkaas kuu muuqda, wayna ku garab istaagi doonaan. qodobka 3 ama nambar 3 ayaa ah ka saar noloshaada fikradaha qaldan ood nafsadaada ka aaminsan tahay. tani waxaa sabab u noqon kara noloshii aad yaraantaadii ku soo kortay iyo dhegaysiga asxaabtaada kuwaasoo laga yaabo in ay nolosha ku fashilmeen. iska saar fikradaha xunxun oo noloshaada hoos u dhigaayo. ma jiro wax aadan qaban karin, wax walba waa macquul, waa haddii adiga aad kalsooni isku qabto. xikmad ayaa odhanayso haddii uusan jirin cadow gudahanaga ah, cadow bannaanka ka imaanayo waxba kuma yeeli karo. noloshaada way isbedelaysaa markii aad go'aansato in aad adiga isbedel suubin karto, in aad indha caafimaad leh ku aragto nimcooyinka uu Allah ku siiyey oo lixaadka uu kow ka yahay. walaal ha isliidin. qodobka 4 ama nambarka 4 ayaa ah xiriirka. waa arrin in laga hadlo u baahan. haddii markasto aad rabto qof kale in aad farxad geliso, waxaad halis ugu jirtaa in qalbigaada dhaawac soo gaaro haddii qofkaas uu kaa tago, ama aad farxad la'aan dareento haddii xiriirkaas uusan si fiican u sii soconin. aniga ma soo jeedinayo in xiriirka la iska dhaafo. waa wax fiican jaceylka waa nolol, waa farxad, laakiin waxaan ka hadlayaa kuwa aanan noolaan karin haddaysan xiriir suubinin. kuwa raba in ay qof kasta xiriir la suubiyaan ayagoo iska ilaalinaya kelinimada. waxaan idin sheegaya ayaa ah in maskaxdiina aad korisaan ilaa aad ka gaarto heer aadan u baahnayn kuwa kale in ay ku farxad geliyaan. ku faraxsanow noloshaada, haddii xitaa aad xiriir ku jirto, farxadaada qof kale ha ka sugo. qodobka 5 ama nambarka 5 ayaa ah lacagta. tani micnaheedu ma ahan in aadan lacag yeelanin, micnaheedu ma ahan in lacagta ay wax xun tahay. waan wada ogsoonnahay markii aad lacag haysato waxyaabaha aad qabsan karto iyo inta qof oo lacag aad ku caawin karto. laakiin waxaan ka wadaa ha u ogolaanin in go'aamadaada aad ku xirto lacag. haddii shay aad ku dooranayso lacag intee leeg ayaan ka heli karaa, go'aan qaldan ayaad qaadato walaal. waxaad ogaanaysaa markii aad qalbigaada nadiifiso, sidoo kale aad ku noolaato nolol ku dhisan dadka kale, in aad caawiso, in aad noloshaada wax ka bedesho. isku day inaad ku noolaato nolosha aad adigu rabto. ha u ogolaanin maanta waxay ka bilowdo noloshaada in ay kontaroolaan waxyaabahan aan soo sheegnay oo dhan. fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa haddii muuqaalkan uu ku xiiso geliyay inaad sii faafiso, asxaabtaada aad sii gaarsiiso. haddii channelka aad ku cusub tahayna subscribe saar, like, comment ka soo bixi. fikradaada waa noo muhiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dad badan noloshooda waxa ay ku lumiyaan in ay la noolaadaan dhacdooyinkii la soo dhaafay, in noloshooda ay barbar dhigaan dadka kale, yacni waxa ay ku jiraan nolol xabsi ah taasoo u diidayso in ay horay u socdaan. haddii aad rabtid
in aad ku noolaato nolol aayatiin leh. Noloshaada marna ha u ogolaanin in ay kontaroolaan shantan waxyaalood. Iska ilaali in shantan waxyaalood ay saameyn ku yeeshaan noloshaada. qodobka koowaad ama nambarka koowaad ayaa ah wixii la soo dhaafay. Ha u ogolaanin wixii ku soo maray nolosha in ay saameyn ku yeeshaan waqti xaadirkan ama mustaqbalka waxa aad higsanayso. wax walboo dhacay iska ilow xanuunka aad soo martay si aysan u burburmin mustaqbalkaada. ka bax nolosha mugdiga ah si aysan kaaga xirin iftiinka nolosha. wixii la soo dhaafay way tageen. wax walboo kugu dhacay waxay noqotaba in aad noloshaas ku sii noolaato wax faa'iidaha kuma keenayso. haddii uu qof qalad kaa galo waxaad kaliya oo guulaysan kartaa waa inaad iska cafiso horeyna aad u socoto. haddii aad la nooshahay naceeb way kaa guulaysteen. haddii aad rabto in aad guulaysato mustaqbalkaada dhis waqti xaadirkan bilow. iska deji culayska ku saaran si aad xor u noqoto. nambar 2 ama qodobka labaad ayaa ah iska ilaali afkaaraha ama fikradaha dadka kale in aad noloshaada ku xirto ama ay ku tiirsanaato. qancinta dadka kale aad qancinayso haddii fikradahooda aad qaadato ogow mustaqbalkaada ayaa meeshaas ku lumay. inta aadan wax suubinin isweydii waxa aan suubinayo ma waxaan u suubinayaa rabitaan aan aniga rabo mise waxaan u suubinayaa si aan u qanciyo qalbiyada dadka kale. adiga qiimo ayaad leedahay. ma aha noloshaada in aad ku xirto dadka kale waxa ay kaa aamini doonaan. iftiimi noloshaada. kuwa noloshaada ka fakirayo waxay arki doonaan iftiinkaas kuu muuqda wayna ku garab istaagi doonaan. qodobka 3 ama nambar 3 ayaa ah ka saar noloshaada fikradaha qaldan oo nafsadaada ka aaminsan tahay. tani waxaa sabab u noqon kara noloshii aad yaraantaadii ku soo kortay iyo dhageysiga asxaabtaada kuwaasoo laga yaabo in ay nolosha ku fashilmeen. iska saar fikradaha xunxun oo noloshaada hoos u dhigaya. ma jiro wax aadan qaban karin. wax walba waa macquul waa haddii adiga aad kalsooni isku qabto. xikmad ayaa oranayso haddii uusan jirin cadow gudahanaga ah cadow bannaanka ka imaanayo waxba kuma yeeli karo. noloshaada way isbedelaysaa markii aad go'aansato in aad adiga isbedel suubin karto. in aad indha caafimaad leh ku aragto nimcooyinka uu Allah ku siiyey oo lixaadka uu kow ka yahay. walaal ha isliidi. qodobka 4 ama nambarka 4 ayaa ah xiriirka. waa arrin in laga hadlo u baahan. haddii markasto aad rabto qof kale in aad farxad geliso waxaad halis ugu jirtaa in qalbigaada dhaawac soo gaaro haddii qofkaas uu kaa tago ama aad farxad la'aan dareento haddii xiriirkaas uusan si fiican u sii soconin. aniga ma soo jeedinayo in xiriirka la iska dhaafo. waa wax fiican jaceylka waa nolol waa farxad laakiin waxaan ka hadlayaa kuwa aanan noolaan karin haddaysan xiriir suubinin. kuwa raba in ay qof kasta xiriir la suubiyaan ayagoo iska ilaalinaya kelinimada. waxaan idin sheegaya ayaa ah in maskaxdiina aad korisaan ilaa aad ka gaarto heer aadan u baahnayn kuwa kale in ay ku farxad geliyaan. ku faraxsanow noloshaada haddii xitaa aad xiriir ku jirto farxadaada qof kale ha ka sugo. qodobka 5 ama nambarka 5 ayaa ah lacagta. tani micnaheedu ma ahan in aadan lacag yeelanin. micnaheedu ma ahan in lacagta ay wax xun tahay. waan wada ogsoonahay markii aad lacag haysato waxyaabaha aad qabsan karto iyo inta qof oo lacag aad ku caawin karto. laakiin waxaan ka wadaa ha u ogolaanin in go'aamadaada aad ku xirto lacag. haddii shay aad ku dooranayso lacag intee leeg ayaan ka heli karaa go'aan qaldan ayaad qaadato walaal. waxaad ogaanaysaa markii aad qalbigaada nadiifiso sidoo kale aad ku noolaato nolol ku dhisan dadka kale in aad caawiso in aad noloshaada wax ka bedesho. isku day in aad ku noolaato nolosha aad adigu rabto. ha u ogolaanin maanta waxay ka bilowdo noloshaada in ay kontaroolaan waxyaabahan aan soo sheegnay oo dhan. fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa haddii muuqaalkan uu ku xiiso geliya inaad sii faafiso asxaabtaada aad sii gaarsiiso. haddii channelka aad ku cusubtahay subscribe saar like comment ka soo bixi fikradaada waa noo muhiim.